iyadoo uu maalinnimadii shalayto magaalada London ee cariga Ingiriiska uu ku soo gabagaboobay shirweyne lagaga hadlayo xal u helista arrimaha Soomaaliya oo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo beesha caalamku ay muhiim u arkeen hirgelintooda ayaa waxaa shirkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliyeed dadka reer Nairobi oo maanta aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay shirkaasi waxaan u arkaa nafahaanteydii ra'yigayda shirka Soomaalida lagu qabtay maandhawta halkaas London lagu qabtay inuu yahay shir ummadda Soomaaliyeed mideynay waxaan ku sheegayaa 6 bilood ee maxaakiimta waan ka soo qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed nolol bay gaadheen isfaham bay gaadheen dadka burburiyay ee raali ka noqon waayay nabadda Soomaaliya waa Ingiriiska iyo Mareykanka iyagaana burburiyay 6 bilood waxaan ogeyn inay Soomaaliya heshiisay inay wanaag iyo sharaf ay maartay arrinkeedii ay ku dhameysatay taana iyagu ay burburiyeen haddana dan iyagu ay leeyihiin inay meesha ka fulinayaan shirka maalinka soconaya xalka Soomaaliya lagu keenina anagu ma garanayno shirkii shalata London ka dhacay waxaan u arkaa ka shakhsi ahaan inuu yahay mid ummadda Soomaaliyeed ay guul ugu jirto cid alaalay cid ka soo horjeedana waa cid diidan nabadda ummadda Soomaaliyeed waa ra'ligayga waxa dadka dhahayo shirkaas Soomaaliya lagu afto waxba kama jiraan Soomaaliya shirkaas danba u yahay cid diidan waa cid nabadda Soomaaliyeed diidan shirka Ingiriiska waxaan u arkaa mid aan wax ka soo bixinin sababtoo ay tahay nin guri u dhisay nin kale guriga u dhisay hadda ka hor taariikhba lama arag nin kale gurigiisa dhisay taariikhba lama arag dadka meesha iskugu tagay ee Soomaalida ana way dhagal yihiin dad dhaga qaba wax loo sheegi kara ama wax fahma ama wax garta haday wax garanayaan gurigooda joogay garan lahaayeen iyagoo gurigooda joogo ayay wax garan lahaayeen oo gurigooda hagaagsan leeyahay gaalna waxba nooma sameeyeen waxna kama sugeyn inuu gaal wax noo sameeyo weligan aniga shirka London waxaan u arkaa shir ummadda Soomaaliyeed ay dan ugu jirto because ummadda Soomaaliyeed iyada tashan weyda in loo taliyo waa waajibkaas adduunyada saaran weeyaan marka sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed haday tashan weyda in loo taliyo waa waajibna saaran because dadka haystaba hadda waa hogaamiye kooxeed iyo dad iyaga iskood soo magacaabay way runtii shirkii ka dhacay London waxaan u arkaa shir oo ummadda Soomaaliya dan aysan ugu jiran sababtoo ah waxa ugu maqal ah in shirka ama tirooyinka xildhibaanka lagu badin rabo dumarka oo ragii la yareeyo runtii horta aad baan u soo dhaweynaynaa waxyaalihii ka soo baxay waa waxyaalo wanaagsan laakiin waxaan aaminsanahay waxyaalahaas inay iska yihiin hadal qowda maqashay waxna ha u qaban oo hadalkaasi aan laga run sheegaynin haddii caalamku run ka tahay inay Soomaaliya ma taqaanay wax la qabtaan wax way la qaban karaan laakiin mar walba waxay sheegaan inay wax la qabanayaan waxna lama qabtaan marka anagu haday wax qabanayaan waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad galbeedkan waxay niidooda ku jirto dantooda fiirsanayaan waayo al-shabaabtan iyo burcbadeedkan ayay u dan leeyihiin wax kale ay ka hadlayaan malaha waayo dhibka markay gaareen ay arkeen ka bacdi ayay soo gurmadeen inay shir qabtaan inta kale Soomaaliya intaas oo sano dagaal ku jirto wax ku jirtay intaas dhan lagama hadlin go'aamada shirka ka soo baxay waa go'aamo wanaagsan laakiin waxaan go'aanayaa lacagta la ballan qaaday in masaakiinta wax loogu qabto yaan wax lagu qabsanin idinka wax ugu qabta masaakiinta shirkan ayaa ahaa mid muujinayay in beesha caalamku ay haatan u soo jeedsatay arrimaha Soomaaliya waxaana hirgelinta go'aamada quruxda badan ee ka soo baxay shirkaasi laga sugayaa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed inkastoo ay inta badan bulshada Soomaaliyeed walaac ka muujiyeen shirarka lagaga hadlayo danaha Soomaalida ee lagu qabanayo wadamada shisheeye dadweynaha ku nool magaalada Nairobi caasimadda dalkani Kenya ayaa aragtiyo kala duwan ka soo jeediyay shirka uu Ingiriisku dhawaan uu qabtay dalka Soomaaliya arrimihiisa iyagoo sheegay intooda badan inaysan shirkaasi dani ugu jirin xalka Soomaaliya xalkeeduna uu ku jiro inay dadka Soomaaliyeed ka tashadaan ayahooda Cabdiraxmaan Umar Cabdi Cabdiraxmaan Soomaali Royal 24 TV Nairobi Kenya